السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دقالية أنا وحنا كينغ سلفر واحد يقدر وانا سان كينغ سلفر ميديا مربوط الدنيا كجوت وحن كلها باش إبراق ونولو هذا يعني تايم مركي كور رئيس بقطة نيجي channel كي وحن كلها لايك كومنت سبسكرايب هيقول تجد أنا علامات أو تورن شو كم هذا علامات الوجه كلمة علامات الوجه جيو وحكلام ما هذا معن ولايك تا وكومنت تيجا وسبسكرايب كا وأنت سأنا kuwaas ha inagu dhiirigelin inoo filan dhiirigelin garab istaag intaas ayaa anagu igu filan ma santahay muuqaalka maanta aan rabo inaan ka hadlo waa arrin xasaasi ah waa arrin mudan in laga hadlo King Sulfur Media waa taqaanaan leedinkaga sheekan maayo waxa uu dul istaagaa arrimaha warkoodu la dondoonayo hada arinta warkeeda la dondoonayn macna kuma fadhiiso arinta warkeeda la dondoonayo soo jiitamaysay baan rabaa inaan ka hadlo insha Allah ciwaanku waa soo aragteen soo qiimeyseen soona dhadhamiseen waxaan horay uga hadlay muuqaal ahaa عادة waxaan horay uga hadlay ama aan soo bandhigay hodan Cabdiraxmaan Dheere oo soo bandhigaysay caruurta ay u dhashay ninka la yiraahdo Mursal Muuse in badan social media iyada ayaa haysatay waxay ku haysatay mar walba waxay reaction ka soo bixisaa heesaha uu qaado odaygeeda Mursal Muuse waxay falcelin ka soo bixisaa barnaamijyada isaga ku saabsan waxay mar walba hambale jacayl dhambaal jacayl fariin jacayl ay barteeda Instagram-ka kula soo wadaagtaa ninka la yiraahdo Mursal Muuse hadaba taasi dhigeedo gabadha la yiraahdo Qadar Salimo waxay aad iyo aad ugu gaabisay inay ka hadasho arrimahaas waa sidaan ku naqaano Qadar Salimo waa gabar aad u xishood badan aad u afgaaban aan hadal badnayn aanan ahayn fanaaniinta kuwooda hadalkooda macnaheedu ama kalamadooda ama fikirkooda ku cabira hadalka caadiga ah haday doonayso inay qof la hadasho waa fanaanad la mid ah fanaaniinta qaar waxay ku cabirtaa suugaan laakiin waxa la yiri dhariga ama digsiga sida u taqaanidba kuleelka waxa ka keenay waa dabka gabadhii maalmahan dambe way kululaatay way oloshiban ku sida maalmahan waa iska abaysan raali ahaada aballe oo sanka lagu cunayo weligii ma gabadhii maalmahan way kulaatay Instagram-keeda waxa arkaysaa iyadoo sabana inta hodan me war hodan me adakay ariga ma aad ma ahane aawe laga jeedaa wala qaal ya soo gartaan ma maalmaha inta kulaatay ba iyaduna way halaaqaysaa sida waxaasha hadaba hodan Cabdiraxmaan haday caruurteeda soo bandhigtay bay tiri anigu maxaa ay diiday caruurteeda ma aha caruur yaala inaan soo bandhigo waxay tiri hadii hodanay adigu aad single hal cunug ah u dhashay hal ubad hadii u dhashay bay tiri ninka la yiraahdo Mursal Muuse anagu tarees u dhalay saddex 1 2 3 1 2 3 ayar saddex baan u hayaa bay tiri hey marka waxay soo bandhigtay saddex gabdhood inay yihiin baan jecelahay saddex cunug saddex ilmo oo hadda waa sideedee wallahi billah ma sha Allah qurux badan ilaaha deesto very beautiful yeah hada libiska nadaafada fircoonida
kalsoonida iyo wanaaga ka muuqda la yaabayso. kelmad waxay ku soo qortay halka iyada ah aad dareemaysaan qaabka iyo wadada iyo sida ay u socoto. waxay soo tiri qasaaro ma qabo yaa laxan baan saaraya. qasaaro ma qabo bay tiri intay ii joogaan gabdhahayga alxamdulillaah ilaahow iyo xafid oo baare iga dhig. anigu qasaaro ma qabo ay tiri 3 cunugba haddaan ninkaa u hayo bay tiri anigu qasaaro ma qabo ma ninkii mursalaha waa 3 u dhalay qasaaro ma qabo tiri ahay saaro ma qabo. dadka commentator soo qoray waxa ka mid ah Saciid Maanka waxa uu leeyahay hadda wax mursal u eegba kuma jiraan maxaa dhacay. haddaba intaas baa rabaa inaan idin wadaago anigu waxaan ahay King Solver waxaad iga daawanaysaa King Solver Media. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.